iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay soo tarayso xaaladda qalafsan ee abaaruhu u geysteen dadka xoolo dhaqatada ah ayaa telefishinka caalamiga Universal TV kaamka ugu weyn ay ku dhaqan yihiin ku dhawaad 60 qoys oo iyagu maanta faramaran ka taagan dunyadii ay lahaayeen isla markaana baaq u diray xukuumadda Soomaaliland guddida abaaraha iyo cid kasta oo ka qayb qaadanaysa samata bixinta dadkan abaaruhu ay waxyeeleen hooyo marka hore magaca waxa la yiraahdaa Maryam Cali halkan intaad ku sugnaydeen waxaan ku sugnaan muddo dhowr iyo 20 habeen waan gartay marka bal xoolihii ka waran iyo abaartayda haysataa xoolihii ka waramay haye wax xeradii maratay iyo waxaan wali wax culaalad lahayn ku jiraan ba waanu leenahay haye tawahay dadkeenan meesha degay halkan degay bal maxaatin idinka maxaa isku keenay waxa kaaya isu keenay dadkii guuray ee coodan la qabtay ee hayaamay ayaanu ahay haye dabadeedna markii aanu geediga ahayn ee gawaadhidii wax caawama naloogu soo gurmaday oo dadkii reer miyiga ah noogu gurmaday iyo wax gaadiid ku soo guuray inahan ayay nagaga go'go'day socodkii aanu soconaynay ee ku soo soconay dhulka waan gartay haddar xoolihii ma bal xoolihii ka waran xoolihii aygaas wixii waxna dhamaaday wixii kalena aygaas ay u qurbaab tageen mahad ilaahay baa iskale wax kastoo dhacay ilaahay baa loogu mahadnaqayaa marka xigta waxaanu nahay dadkii reer miyiga ahaa waxaanu nahay dadkii ka yimi gobolka Sanaag iyo gobolka Saraarba waxaanu nahay dadkii ka soo noqday Coodanle halkan markii aanu maraynay wayna goosatay wixii aanu haynay halkaas faraya kaga baxeen ilaahay baa loogu mahadnaqayaa waxaanu anagu markaan niri war aan meel isugu tagno oo halayna arko oo haddii dawladdan uu hogaaminayo Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo hayna aragto oo hayna arko dad kasta oo walaalaheena hayna arkaan iminkana waxaan halkan uga baaqaya Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo dawladdan uu hogaaminayo iyo dadkan muslimiinta ah kala walaalaha inayna soo gaaraan waxa loogu daran biyalaanta waxa loogu daran cunto la'aanta hadda waxaanu aad iyo aad uga cabsanaynaa xagga caafimaadka inta xaruno iyo waxaynu soo dhexdhacbaan ka baqayna waxaan loogu sii daran xilliyadii dhaxantu aadka ugu faraha badnayd baan ku jiraa inaan dhiraha habeenkii hoosta ka gallo ayaan meesha ugu soo ururay hadda dhaxanta loogu sii daran dawladda iyada barakaysan waxaanu u diranaynaa baaq waxaanu leenahay walaalayaal na gacan qabta na eega waxa maanta na haysta na eega idinka mas'uul leeyeen Yaasin Baaldahab telefishinka caalamiga Universal